ree cali haddaan nahay codkayaga kulmiya iska leh inankaan abarartoo nahay baan ugu iilinaynaa annagu munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyey ayay beelweynta Cali Ganuun habeennimadii xalay taageero mugla ugu muujisay xisbiga kulmiye iyo sidoo kale musharaxiinta madaxweyne iyo ku-xigeen ee xisbigaasi. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanka dhalinyarada waxgaradka odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee beeshaasi ayaa waxa kala soo qayb galay musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda xisbiga kulmiye oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta barsaabka gobolka awdal xildhibaan Fuaad siyaasi Cabdiqaadir Daahir Oojar iyo sidoo kale Axmed Xaaji Daahir oo kamid ah guddiga kaambiinka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo mas'uuliyiin kala duwan. ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhalinyarada iyo haweenka beesha Cali Ganuun waxayna sheegeen waxa weeyaan anagu hadaanu nahay dhalinyarta reer Cali Cumar agudafkooda anigoo ku hadlaya oo gudoomiyahoogiya meel kale isku manaanogin waxaanu isku ognahay wixii odayaal loogu taliyaan haddayna yidhaahdaan cid raaca iyo haddayna yidhaahdaan meel raacaba anugu waxaan damacsanahay waa saajin ciddii igu taageeraysa iyo ciddii igu diidaysaba waxaan leeyahay reer calow dee innaga waa lagu yaqaano leexleexad shaqo kuma lihin dad ilaahay qiimeeyey baan nahay ilaahay baa karaamada ayna siiyey meelaan raacnay oo magaraysaa weli liicday lama arag magadhiisha yare ganuunta Cali Ganuun laynagu magacaabo subag iyo magaraysa iyo caanaha ka buuxa waa cidda ilaahay siiya caanaha iyo subaga baa ku wareegaya ilaahay ku wareejiyo saajin baan maanta u shubaynaa una xaq bute Allah siiyo waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidaad magaraysaa maanta u soo ajiibteen waxaan magaraysaa idinku dardaarayaa reerka ilaahay baa magaraysaa horta inagu xadhigaa kaliya hataan nahay waxaan idinka yar maqlayay siduu caaqilkuba sheegayey dee inama yaroo dhalinyaro walaalaheena oo magaraysaa kolley magaraysaa dabada laga soo yar gujiyey in magaraysaa reerkeennii reer Cali halkaa buuxe miisaan gale ay yidhaahdaan dad halkaa imanayaay war haddii dad la guranayo cid walba dad bay buuxsan lahayd magaraysaa madax dad cidina ma hesho ilaahay baa reer Cali qiimeeyo ballaadhiyey aanana waanu ku faraxsanna maanta waa maalintii qaraabada loo baahnaa raximka maanta haddaan xidhi weyno dee ilaaha raxmaanka magaraysaa ilaaha raxmaanka ayaana goynaya ilaahay magara waxaan ku mahadinaynaa inaad maanta hawsha iyada kaalinteeda ka soo baxno waxaan magaraysaa leeyahay oo mar labaad leeyahay ballankeenu waa codkeenu waa kulmiye codkeenu waa xisbiga kulmiye horay baynu u ahayd maanta inagu maynaan soo geli mar haddaan maanta ree Cali halkaa soo buuxinay intaasaaba badhiga hadhaaba aniga wax kaloon doonayaana ma jiro codkaygana saajin ba iskale codkaygana aniga kulmiya iskale codkayaga ree Cali haddaan nahay codkayaga kulmiya iskale inankaan abarartoo nahay baan ugu iilinaynaa annagu mana nihin maxaan ku dhahdaa xisbi kale ma nihin annagu kaas un baan nahay odayadu halkay noo darteen un baan nahayna aad baad u mahadsantihiin farxad darteed waxaan ku hadlay ma garanayo laakiin muhiimadaydu waxa weeyaan inaan kulmiye weligayn ahayn dee maantana waa nahay laakiin waanu caddaysanay xalfadaana dee waad ku maadaragtay horta guul laynigaga dambeeyey guul ma aha waa nigaga dambaynay waa horena waad noo ogeydeen laakiin waad isqasbaysiin dee nafta lama qasbo meesha aynu waalidkiinu joogina waxba kama tihidino run baan ii sheegayaa waxaan leeyahay waar ilma adeerayaal danteenu waa halkay waalidkeenu mareen aad baan ii salaamaya dhammaan waxaan taageersanahay haddaan anigoo ku hadlayo afhayeenka ururka dhalinyarada ee beelweynta reer Cali inaan taageersanahay oo aan garab istaaganahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka mudane saajin isagoo halkan jooga halkan baan idinka caddaynayaa sawdiyaar inaguna ma tihiin sawdiyaari ma tihiin codkiina sawdiyaari ma tihiin Cali Ganuun meel walba jooga sawdiyaari ma tihiin deegaanka sidoo kale sawdiyaari ma tihiin insha Allah waxaa inoo balana maalinta lagu ballansan yahay doorashada haddii ilaahay yidhaahdo inaanu garab istaagno oon codkeena siino oon u hilino mudane musharaxa saajin haddii ilaahay na gaarsiiyo nabad inagu gaarsiiyo waxaan kugu hambalyaynayaa insha Allah tacaala ilaahay idankii inaad guulaysato waad guulaysanaysaa insha Allah tacaala biidnillaahi kariim waad guulaysanaysaa faatixadan kuu marnay waad guulaysanaysaa hooyo waxaad ku guulaysanaysaa waxaad tahay nin maxay ahayd iimaan leh oo maxay akhlaaqad leh oo dadnimo leh oo nin la doorto nin u qiimo badan baa tahay
aad baan idinku mahad celinaynaa haddaanu nahay guddidii habar cafaan habar cafaan dhammaanteed maanta oo keliya hatama inaa xabad xabad bay u iman doontaa oo reereer bay u iman doontaa halkan oo ay ku taageerayso madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee maxamuud xasan sacad saajin habar cafaan dhammaanteed way taageeraysaa reer cali aad baan ugu mahad celinayaa reer cali waad mahadsan tihiin codka inaan kulmiyo siino oon saajin siino sow iskuma ogin sow sidaasi ballan ma aha waxa weeye fartiinaa la sugayaa fartiinna ayuu saajin sugayaa inaad u codaysiin baa la doonayaa sow u codayn maysiin waad mahadsan tihiin habar cafaanna waxay diyaar u tahay inay maanta soo saarto saajin dhinac xasan sacad saajin inay soo saarto adeer diyaar baanu nahay reer calow waxaad ku jirtaan habar cafaanna ilaahay khayr ayni siiyo maanta waad muujiseen waanan inii ducaynaynaa waxaan idiin sheegayaa maalinta 13 Noofambar horeyna 13 Noofambar waad u codayseen maantana waan idinka filaynaa dhowr cishay inoo haray 13 Noofambar haddii ilaahay yiraahdo 13 Noofambar kullay kuyugu u dheeraadaa waxa loo baahan yahay maalinta inaad adkaysi u yeelataan sabir u yeelataan kuyuga dheerna inaad sugtaan si aad codkiina aad u siisaan murashaxiinta xisbiga kulmiye waana rajaynayaa oo horeba waad u siiseen haddaba su'aasheedu waxay tahay cidda diida mustaqbalka habar cafaan cidda diida heshiiska tolnimo heshiiska walaalnimo iyo heshiiska siyaasadeed ee la galna beelaa jibriyoonis war ma qof habar cafaan ama soo qof dantiisa ka shaqeynaya waa qof dantiisa ka shaqeynaya ninkii shalay toole wadani ahaa ee afka wadani ku hadlayay ee isla maanta afka wadani ku hadlaya heshiiskii shalay habar cafaan iyo kulmiye ma beenin karo heshiiska maantana ma beenin karo waa dantiisii gaarka ayd buu wali wataa waxaanu leenahay habar cafaan iyo jibriyoonis waa walaalo waa isku abti waa isku guri cid kala qaadi kartaa ma jirto habar cafaanna waa kulmiye wayna dhisaysaa mataqaanaa saajid arrinka mucjisada leen idin sheegaya qodobkayga ugu dambeeya guddi aan anigu ku jiro Abdiqaadir ku jiro xildhibaan Faad ku jiro wasiir ku-xigeenka xanada xooluhu hogaaminayo odayaal qiimo badan oo dacar iyo maxalliye maayir ku-xigeenku ku jiraan rag fara badan oo siyaadiyo odayada dhaqankuna ay hogaaminayaan saddexdii cisho u dambeysay safraan ku jirnay safarkii ugu horeysay waxaanu ka bilownay hololka waxaanu ku soo xidhnay cunaqabad iyo degmo laqas waa xuduud ballaaran cod badan baa yaala sanduuq kasta oo nu dul tagno si wada jiray beelaha habar cafaan iyo beelaha jibriyoonis codkoogu yaalaa dhammaan dadkaas waxay noo soo dhaweeyeen si sharaf leh waxay noo qaabileen si sharaf leh waxayna yidhaahdeen mid baanu nahay codkayguna waa kulmiye shalayna waxaan haddana u baxnay laba daamood baan u baxnay halkan aanu ka bilownay annagu baki iyo xeego cadaad belembed dare quruxsan weeraar baanu ku soo xidhnay tiim kalena waxay ka bilaabeen carada madow waxay tageen jirjirka waxay tageen xalboon waxay ku soo xidheen xali maale intaas sanduuq 12 sanduuq baa yaala cod badanna waa ku jiraa dhammaantood mid weeyaan dadkaasi dad la munaafiqadeyn kara maaha waa dad isdhalay weeraar markaanu joognay si fiican bay nagu casuumeen labada reer Axmed iyo Muusafiin baa wada taga codka yaalaana waa 700 oo cod in ka badan dhammaantood wada jir bay haayeen war dadka aynu isku keenno dadka aynu walaalayno war dadka yaa la kala geyn mudane musharax waxaan kuugu bishaaraynayaa beesha reer cali cumar beesha cali ganuuneed beesha cali gobonnimo inay tahay beesha wada bilida guusha waxa weeyaan doorashooyinka Soomaaliland mar hadday ku garab istaageenna guushu waa garabkaaga taa ku bishaarayso mudane musharax waxaan kuu sheegayaa mudane musharax beeshan reer cali cumar 2010 waxay ahaayeen kulmiye 2017 waxay ahaayeen kulmiye labada jeerba kulmiye wuxuu ku guuleystay aqlabiyad aan la soo koobi karin maantana tiitul la mid ugu guuleysanaya ay ku abshirayso bismillah sida sharafta leh iyo milgaha iyo maamuuska leh
inankiina aad xambaarteen aad maanta ugu hiilinaysaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhawaynaynaa waana wixii laynaga filayay ee hooyo laga filayay dadku iskuma jiro inanku waa inankiinnii xisbiguna waa xisbigiinnii madaxweynuhuna waa madaxweynihiinnii aad shalay 2017 doorateen maantana halkii aad ahaydeen unbaa laynaga filayaa waxaa sharafiyaha inan maarta cuqaasha salaadiinta sida fiican u hadashay waxina caayo waa lagu dalacawn qof kaa naxay amaan wax kula doonayn unba hadalka ka badiya mowqifkiinu wuu cad yahay waanu cad yahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaad sidaa ahaataan aan isku wala ducayno dadka qaar baa karaamo leh dhowr gooroo la soo maray ciddii aad raacdeen way guulaysatay anna caawa waxaan dareemayaa furihii guusha inaad ii dhiibteen cali ganuun waxa weeye waan isdhallay waan dhallay wayna dhaleen isku deegaan baan ahayn isku reer baan ahayn ta kale habar cafaan dee mid iyo laba mooyaane annagu haddaan reer hebel nahay dhan iyo dhasheed baan nahay meesha lagu kala gurina aan maba garanayaba isku dab baan nahay isku ceel baan ka cabnaa sidaa liajligeed go-aankii maalinta dhaweyd odayaashu ay qaateen waxaan u malaynayaa cidda ka soo horjeesatay waa cid dad kaa wada deganays dhalay dadtooda aanan ilaalinayn wax kale anugu samayn maaye reer calow dee horta waan idiin mahadnaqaya ta kale dee idin iloobi maayo